Hello, salaamu calaykum. Magacaygu waa Bashiir Salmaan Aadan. Waxaan ahay dhakhtar veterinary oo ka howlgala jaamacadda Barco, gaar ahaan kulliyadda xanaanada xoolaha. Waxaan jeclahay halkan inaan idinkula wadaago video kooban oo ka hadlaya sida aad adigoo isticmaalaya PowerPoint-ga kugu jira kombiyuutarkaaga aad lecture video ah ugu samayn karto. Marka videogani run ahaantii waxa uu aad u caawinayaa dadka sida tusaale ahaan macallimiinta jaamacadaha ee doonaya inay ardaydooda casharo siiyaan ama duruus ay bixinayaan doonaya inay arday ku gaarsiiyaan iyaga oo magaranaysaa isticmaalaya hab online ah dabeetana ay casharkii kusoo diyaariyaan PowerPoint kadibna ay usoo bedelaan video dabeetana ay la wadaagaan ardaydii haddii tusaale ahaan oo kale ay kala fog yihiin sida xaaladan hadda lagu jiro ee ay jaamacadaha iyo dugsiyadu ay fasaxa yihiin. Sidoo kale waxaa isticmaali karaa magaranaysaa dadka kale ee la midka ah sida macallimiinta sekondariyada oo kale wixii ay uga baahan yihiin way isticmaali karaan. Marka waxaan doonaya inaan halkan idinku caawiyo qaabka aad u isticmaali karto PowerPoint presentation aad kusoo diyaarisay dabeetana aad video ugu bedeli karto. Muddo badan baan run ahaantii isticmaalayay ama magaranaysaa ujeedooyin kala duwan sida tusaale ahaan marmarka qaar aan dadka afka Soomaaliga ku hadla wax u faa'iideynayay iyo mar aan magaranaysaa arday kula wadaagayay cashar intaba. Sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay maadaama ay baahi taagan tahay in aan ku caawiyo dadyowga kala duwan ee ku dhex jira fiilka waxbaridda ummadda ku dhex jira inay ka faa'iidaystaan qaabkan fudud oo waqti badan aan kaa cunaynin farsamo badan iyo magaranaysaa aqoon dheeraad ah iyo tababar saayidana aan u baahnayn keliya u baahan techniques yar oo fudud in lagugu tuso adigoo isticmaalaya PowerPoint. Markaad doonaysa haddaba inaad isticmaasho qaabkan tusaale ahaan oo kale imika waxaan haro casharkan ugu isticmaalay oo aan ugu diyaariyey anigoo isticmaalaya PowerPoint presentation oo lecture-kii ku bixinaya ardayda aan cashar kula wadaagay. Haddeer waan clean gareeyey oo yacni waan ka jaray videogii iyo waxyaabihii oo dhan si aan idinkula wadaago. Marka haddaba si aad PowerPoint ugu beddesho video maxay baad samaynaysaa? Waxaynu samaynaynaa tallaabooyinkan baynu raacaynaa soo socda. Kow waxaynu tegaynaa slideshow sidaad la socoto tusaale ahaan PowerPoint waxa uu leeyahay button la yiraahdo slideshow. Marka slideshow ayaan ku dhufanayaa. Slideshowgu waxyaabo fara badan buu leeyahay waxyaabaha mar gaar aynu kaga hadli doonaa kala duwan laakiin hadda inta aan doonayo in focus ka saarno waxa weeyaan waxaan tegayaa record slideshow baan tegayaa. Record slideshowga markay soo baxdo waxay soo baxaya laba button baa soo baxaya. Labadaa button actually waxay kala yihiin waa start recording from beginning oo kan hadda aynu joognaa oo uu ka bilaabmayo slide-kan uu ka bilaabmayo iyo start recording from the current slide oo tusaale ahaan oo kale haddaan ka labaad taaganahay oo kale waa in macnaheedu dee aan current slide kaa aan dul taaganahay aan ka bilaabo sida tusaale ahaan kan oo kale oo ah kii labaad ah kan oo kale oo tusaale ahaan kii labaad ah. Marka tusaale ahaan oo kale inta badan waxaa muhiim ah inaad isticmaasho markaad doonaysa inaad bilowdo lecture-kaad bilowdo waxaad qurux badan inaad ka bilowdo start recording from beginning ayaan ku dhufanaya. Markaan ku dhufto waa inay soo baxdaa daaqaddan yar. Daaqaddan maxaa ku qoran haddaba? Dooro select what you want to record before you begin recording. Marka labadani waa inay slide and animation timing oo magaranaysaa slide-kii waa animation-kii leh iyo maxaa la dhahaayay narration-kii oo codkii link-kii and laser pointer. Laser pointer-gana tusaale waa khadkii ama qofka cursor oo kale hadhow cursor-ka maybe inaan soo bixin marka waa cursor-ka iska beddeshaa waad isticmaashaa khad. Marka waa inay labadan ku tikrinaysan yihiin dabeetana waxaan leeyahay start recording. Hadda recording-kii ayaan bilaabaynaa. Inuu recording-kii bilaabmayo haddaba maxaan ku garanayaa? Recording-kii inuu bilaabmayo waa inaad option-kan haysataa. Halkaa waa inaad ku haysataa recording. Recording-kii waa inaad halkaa ku haysataa. Kani waxa ay tirinaysaa qaybtan section-kan waxay tirinaysaa imise daqiiqo imise minute ayaad ku qaadanaysaa Allahumma salli calaa Maxamed waxaa la yidhahdaa per slide imise second ama imise minute baad ku qaadanaysaa. Marka actually waxay tilmaamaysaa inta minute ama inta second aad ku qaadanaysaa per slide. Intana waa waqtigii guud. Marka hadda waxaynu maraynaa tusaale ahaan 33 second 34 oo xaggana macnaheedu yahay slide-ka waxaan ku guda jirnaa 37 38 39 slide-kan gudihiisa waa kan qura.
haddaad doonayso tusaale ahaan inaad ku soo celiso bottonkan waa repeat dib iigu soo celi waxba khaldayn haddaad doonayso tusaale ahaan adigoo wada inaad ama yar xiiqdo ama qof albaabka uu soo galo ama aad shaah iyo waxaa soo diyaarsato ama qof kula hadlo waxaad joojinaysaa halkan macnaheedu yahay waa bows dabeetana ha dhowto markaad soo noqoto tusaale ahaan oo kale imika halkan taabto bows sidan buu kuu soo baxaya marka hadda wuu taagay slaydka waxaan ku qaatay 1 and 3 second oo macnaheedu yahay waqtiga uu soconayna waa intaa marka haddaan kusii ka gudbo imika slaydkan dib uu usoo bilaabaya kan uu bedelaya laakiin kan sidiisii buu ahaanay marka imika tusaale ahaan bows baan geliyay waan bixi karaa waan soo noqon karaa hawsheedaan soo qabsan karaa halkii baan ka bilaabi karaa ama qof baa ila hadlo qof baan la hadli karaa ama telefoon baan ka joogi karaa hadda maxaan sameynaya laakiin resume baan taaban maxaa dhacay dib buu igu bilaabay dib ayuu igu sii bilaabay isagoo bartii iga sii qaadaya marka waan kasii gudbaya bal hadda slaydkan anigoo taabanaya aarowyadan isticmaalaya ama haddaan doono halkan baan tegaya halkan tusaale ahaan qodobka muhiimka ah halkan doonaya waa inaan kuwan taga aarowyadan dib u noqo tusaale ahaan kale u noqo halkan oo kale kuwan wuxuu ka hadlaya in jihadaad mar buu dhaqaaqayso iyo labadan ka hadlaya botton jihadani halkan haddaba aan eegno halkan waa the most important halkan haddaan ku dhufto imika lesser pointigu waa kanaan isticmaalayo lesser pointigu waa khadka yar cas aan isticmaalayo waxaa ku xiga qalin waa been qalinkan waxaan u isticmaalaya tusaalehaan hoostiisaan ku highlight garaynayaa intan baan waxaan doonaya dhaarshinada ardaygaan doonaya waxbaan ku qoraya tusaalehaan kale haddaan imika doonaya bashiir ayaan halkan ku qorayaa hadda saad magaranaysaa igu baragti garaysay ku xiran tahay weliba bashiir soo maaragtay bashiir haddaan doono calculation iyo waxyaabaha aan doonaya kaga shaqeynayo x plus x soo maaragtay equal markaan doonaya haddaan doono xisaabo isticmaalo waxay la mid tahay 2x incase hadday sax tahay I'm not mathematician dhammaan featuradaas dhan isticmaalay haddaan doonayo waxaan inaan baabi'iyo halkii baan dib ugu noqonaya waxay leedahay highlighterkan intaan oo dhan baan marinaya waan highlight garanaya inaan lala intaan u baahanay baan highlight garanaya cafwan kan waa highlighter baan tegay eraser masaxaadii baan doonayay waxaan oo dhan waan masaxaya masaxaadii waxaan oo dhan anigoo click siinaya click anoo siinaya ayaan wada masaxaya waxaan kale oo kasoo dooran karaa intaan dib halkii ugu noqdo highlighter bay leedahayoo tusaale ahaan oo kale intaa diseases ay ku qoran tahay ayaan highlight garanaya marka marka tusaale ahaan oo kale aan doonaya definition gaara waxyaaba gaara aan ardayda halkan ugu dhameeyo toos bayn hadhow tatan video uga soo baxaya dib haddaan doono waan ugu noqon karaa waxyaabahan oo dhan bay leeyahay erase all ink on slide dhammaan waxaan oo dhan aan meesha ku qoray ayaan taabanaya way masaxday soo maaragtay dhammaan featuradaas haddaan u baahanahay tusaale ahaan oo kale inaan slaydadii qaab kale isbarbar yaaciyo it's okay waan isbarbar yaacin karaa wixiiba halkaas aan dhigi karaa deetana kaan doonayo ayaan marba click siin karaa haddaan doonayo tusaale ahaan oo kale inaan soo dhaweeyo kan baan taabanaya eriyadee baan u baahanay inaan soo dhaweeyo tusaale ahaan oo kale marba intaan u baahanahay marka intaasaan u baahanay inaan soo dhaweeyo hadha waxaan taabanayaa escape baan taabanayaa oo ka noqo haddaan doono marba mar allaaliyo mar kasta intaan u baahanahay ayaan ka isticmaalayaa oo aan ku noqonaya marka imika tusaale ahaan oo kale lesser pointigii baan dooranayaa haddaan doonayo inaad eriyada marba aad soo dhaweeyo waa kan hadda waan wada ballaariyey videogii haddaan doonayo escape baan dib ugu noqonayaa halkayga baan dib taaganaya soo maaragtay marka any feature aad doonayso ayuu powerpointigu balse kuu saamaxaya sidaynu video ugu bedelaa way inoo soo socotaa hadda bal waxaan doonayaa imika wax ku qaatay 3 daqiiqo iyo sekanadaas marka actually waa 4 minute oo dhow 4 minute oo dhow bal sugaya inta 4 ka mid dhamaynayo deetana waan ka gudbay waxaan eegaya slide labaad markaan gudbo halka iga sii bilaabo deetana eegaya hadda 4 minute taagan waan ka gudbay slide-kii labaad eeg 0 buu iga bilaabay marka adiga kugu xiran tahay per slide magaranaysaa xogta ku jirta iyo waxa aad doonaysa inaad sharaxdo ayay kugu xiran tahay sidoo kale qalinka halkan kuu yaalaa okay waxa la waxaad wax magaranaysaa qalinka halkan kuu yaalaa waxbaad ku qori kartaa waxbaad ku sharaxi kartaa kaliya waa inaad practice garayso oo aad garanaysaa aan iska ilaaliso oo magaranaysaa ay u baahan tahay waxyaabihii unnecessary ah marka mar walba kuu tirinaya mana jiro wax ku xadidaya inaad time-kaa ku eqaato haddii aanad adigu fixir ka soo dhigin aanad u dejisanin in slide kasta 6 daqiiqo aanu dhaafin oo aanu kaa dhaqaaqin saasaad ugu adkaysanaysa marka tusaalahaan imika waan joojinayaa videogan 4 daqiiqo iyo shaayid buu marayaa adigu 5 daqiiqo iska dhow videogan muhiimadiisu waa intaa halkaasaan ku joojinayaa marka almuhim waxa weeyaan markaan doonaya inaan joojiyo inta badan escape waa inaad iska taabataa oo aad magaranaysaa ama waa inaad halkan tagtaa
halkan oo kale waa inaad tagtaa laba masalo halkan oo kale oo click baad siin deetana waxaa ku qoran end show ayaad taaban oo waad kusoo gabagabayn haddii kalena escape baad taaban dabeetana videoguu istaagaya videogii hadda waa istaagay inuu duuban yahay oo codkaygii meesha aan ku duubay in kale maxaan ku garanaya samecaddan baan ku garanaya samecaddani waxay tilmaamaysaa codkii aad duubtay bal waan daarayaa oo deetana dib baan isu dhegeysanaya cafwan ciladu waxa weeyaan iphone-ka laakiin haddaan imika iphone ka saaro kale tusaale ahaan it will be okay oo toos baan u hayaa marka almuhim waxa weeyaan mar walba inaad samayso waxa loo yaqaano waxaan tegayaa record slideshow dabeetana start recording from beginning oo kan aan taaganay baan ka bilaabaya hadda waxaan doonaya haddaba inaan video u bedelo video sidaan ugu bedelaya file baan tegaya file markaan tago waa inuu halkaa isoo dhigaa chapter 6 oo ah chapterkii aan duubayay oo codkiisa u saaran yahay dabeetana hoos baan usoo degaya waxaan tegayaa export markaas ma aragtid export baan tegaya export baan ku dhufanaya export markaan tago waa inuu waxaan oo dhan buu isoo saaraya waxaan oo dhan muhiimaha waa inaan ku dhuftaa create video markaan sii tago waxaan buu isoo saari then waxaan kasii dooranayaa create video baa dambe hadda videogii waa inaan markaas save garayaa waan save garaynayaa documentii actually waxaaba iga dhigtaa desktopkaan geliyo waa kan hadda videogii waan save gareeyay dabeetana markii aan save gareeyey toos waxaan uga soo helayaa bahalkii in intaan tago desktopka ka soo baaro ay noqonaysaa isagoo ay ku qoran tahay chapter 6 of video waka chapter 6 video marka waa inaad convert garaysaa inta badan barnaamijkan oo kale hadduu kugu soo bixi waayo oo tusaalahan kan oo kale imika tusaale aniga mushkilad bay iga haystaa marka waa inaad soo convert garaysaa oo aad u bedeshaa tusaalahan oo kale waxaan odhanayaa chapter 6 oo sidaa maaha open with windows media player igu bedel marka iyo miniday qaadato hadduu videogu tusaalahaan saacadoo kale yahay maybe inay qaadato minido fara badan ay qaadato oo tusaalahaan media exchange intuu soo bedelayo mp3 oo video kasoo dhigay miniday kaa qaadaya qaarkood saacaday kaa qaadanaysaa qaarkood 2 saac 4 saac 5 daqiiqo hadba waxay ku xidhan tahay videogaasi actually inta uu leeyahay iyo inta ma garanaysaay xajmigiisa iyo waxa aad ku duubayso ay ka hadasho aad baad u mahadsantihiin